السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada mar kale asxaabay kanaalkeena ogaal cusub. muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan kusoo gudbin doonaa qiso aad u layaab badan oo haddii aanay duubi lahayn kamaraduhu oo aan laga hayn lahayn muuqaalo caddeynaya aanay cid rumaysateen. qisadani waxay ka bilaabatay markii Sabena iyo walaasheedii mataanta ahayd ee Eresa ay si kaysa uga soo muuqdeen mid ka mid ah wadooyinka dheereeya ee ku yaala dalka Ingiriiska. waqtigaasna waxaa halkaas ka bilowday dhacdooyin layaab badan oo ugu dambeyn ku dhammaaday dil. muuqaalkeena gudihiisana waxaa ku jiri doona muuqaalo xaqiiqa oo laga duubay dhacdooyinka. arrinkaasina waa arrinka ka dhigay qisada mid layaab badan oo ka duwan qisooyinka kale. ka hor intaanaan bilaabin mawduucan ha iloobin daawada inaad like saarto muuqaalka. mahadsanid. laamiga lagu magacaabay M6 waa mid ka mid ah wadooyinka dheereeya uguna saxmadda badan ee ku yaala gudaha dalka Ingiriiska. xawaaraha laamigana wuxuu gaadhayaa 131 kiiloomitir saacaddii. maalin walbana waxaa dhexdiisa mara baabuur tiro badan oo si joogta u mara. laakiin maalintii taariikhdu ay 16 bishii May sanadkii 2008 waxay ahayd maalin ka duwan dhammaan maalmihii caadiga ahaa ee laamigan. sababtoo ah kamaradihii ciidanka ayaa waxay qabteen oo ay sawireen arrin aad u yaab badan. laba dumar oo dhex socda bartamaha wadadan. si kaysana labadii dumar ahaa ee marayay meeshan waxay ka soo boodeen dushii sare ee deerkii ku kala xidhnaa wadadan iyo meeshan ay marayeen. waxayna hor ordeen baabuurtii maraysay wadada. ciidanka ayaa si degdeg ah ku soo gaadhay goobtii iyadoo uu la socday sawirqaade ka socday TV-ga BBC oo rabay inuu duubo waxa ka dhici doona meeshan. iyadoo laga sii deynay dhacdooyinkaasna barnaamij documentary ah oo lagu magacaabo Motor Wake Up oo ka baxa TV-ga BBC. waxayna baxeen iyagoo marnaba maskaxdooda gashan inay soo duubi doonaan dhacdooyinkan la yaabka badan. marka ay ciidankii soo gaadheen meeshii waxay ku kasoomeen waxay ku arkeen meeshii. sababtoo ah waxay filayeen inay ugu tegi doonaan meesha laba meyd oo ay jireen baabuurtu. laakiin waxay ugu tageen meeshii labadii gabdhood oo dhex taagan wadadii iyadoo aanay ku dhicin wax dhiba. haddaba yahaayeen labadan gabdhood maxayna ka soo dooneen meeshan iyo laamigan aan loogu talagelin inay maraan dadku. ficilkan ay samaynayeen maxay uga jeedeen oo ay godan lahaayeen. labadan gabdhood waxaa lagu kala magacaabaa Sabena iyo Eresa Eriksson. waa laba mataano oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Sweden da'dooduna ay tahay 40 sano. markii la baadhayna lagama helin wax xanuun maskaxeed oo ay hore u qabeen iyo wax dembi oo ay hore u galeen. marka ay ciidankii soo gaadheen meeshii Sabena iyo Eresa waxay ahaayeen qaar degan oo aanay ka muuqan inay wax ku dhacaan iyo inay wax sameeyeenba. laakiin isla markaasna isagoo mid ka mid ah shaqaalihii laamigan ugu sharaxay ciidankii siday wax uga dhaceen meesha. si kaysa Eresa ayaa oraday waxayna u carartay dhankii baabuurta. waxayna ku hoos tuurtay nafteedii baabuur weyn oo xamuula. intaa kadibna baraqsiyo kooban kadib Sabena ayaa iyadiina sidoo kale u carartay dhankii wadada iyo dhankii baabuurta. dabcan cid walba arkaysay wixii dhacay waxay dhahdeen bes labadana way dhinteen. mid ka mid ah waxay ku hoos dhacday baabuur xamuula. tii kalena waxaa jiray baabuur oo wuxuu ku tuuray dhanka sare. macquulna ma ahayn inay noolaadaan. laakiin arrinka la yaab kale wuxuu ahaa in labadan walaal ay noolaadeen oo ay badbaadeen mar kale. Sabena oo ahayd midii uu baabuurkii u tuuray kor. waxaa ka jabay baabuurkii muraayadii sidoo kalena saqafkii sare ee baabuurkan isna wuu deeqsamay wuxuu noqday hoos. markii uu jiray baabuurkaasina Sabena waxay waday garaadkeedii muddo 15 daqiiqo ah. laakiin Eresa oo ahayd midii uu jiray gaariga xamuulka ah dhaawac ayaa ka soo gaadhay labada lugood. laakiin waxay ahayd mid uu garaadkeedu joogo oo may suuxiyadu. intaas oo kaliya kuma istaagin dhacdooyinka qisadani. Eresa oo ahayd midii uu jiray gaariga xamuulka ah waxa soo gaadhay dhaawacyo ka soo gaadhay lugaha. laakiin iyadoo dhaawacyadaasi ku yaalaan haddana waxay ahayd mid la dagaalamaysa ciidanka iyagoo isku dayay inay badbaadiyaan oo ay caawiyaan. waxayna ku qaylinaysay waan idin ogahay waxaas ka dhigaysaan ciidan laakiin ma tihidin. intaa kadibna Sabena oo ahayd midii suuxday ayaa soo naaxday oo ka soo kacday suuxdintii. waxayna bilowday inay qayliso intaa kadibna waxaa dhacay arrin kale oo la yaab leh. sababtoo ah Sabena waxay ka kacday dhulkii waxayna u carartay dhankii baabuurta ay ka soo socdeen ee laamigan. And then she was off. And into the other side. laakiin markana si wanaag muu jirin gaadhay ciidankiina waxay awoodeen inay qabtaan. laakiin Sabena waxay ahayd waqtigaas mid ku qaylinaysa ciidanka oo caawiya. iyadoo dadkan ay la dagaalamaysa ay ka cararaysaaba yihiin ciidankii. intaa kadibna waxaa loo wacay helicopter waxaana loo qaaday Eresa cisbitaalka. sababtoo iyada waxaa ku yaalay dhaawacyo waaweyn oo ka soo gaadhay lugaha. Sabena waxaa loo qaaday cisbitaal ka dhow goobtii. ilaa imikana maynaan garan oo maynaan ogaan sababta ka dambeysay inay sameeyaan labadan walaal dhacdooyinkan iyo ficladan. Eresa waxaa lagu hayay cisbitaalkii laakiin Sabena maadaama aanay soo gaadhin dhaawacyo halis ah waxaa laga soo saaray cisbitaalkii 5 saacadood kadib. markii laga soo saaray cisbitaalkana waxaa loo qaaday saldhiggii ciidanka. ciidankii ka soo qaaday cisbitaalka ee u waday saldhiguna waxay ka filayeen oo ay ka sugayeen in Sabena ay isku daydo inay ka baxsato iyo inay samayso ficilo u eg ficiladii la yaabka lahaa ee hore. laakiin waxay ahayd mid degan oo caadi ah oo aanay ahaynba qofkii wixii ku sameynayay laamiga dhexdiisa. markii la geeyay saldhigiina sidoo kale waxay ahayd mid degan oo dadka la qoslaysa oo la sheekaysanaysa sida inaanay waxba ka ogeyn wixii dhacay muddo kooban ka hor.
baadhitaankii ciidanka sidaan soo sheegnay wax lagu ogaaday in labadan walaal aanay lahayn wax dembiya oo hore ama inay hore u qabeen oo looga ogaa xanuun maskaxda. sidoo kalena waxaa la ogaaday in Arisla ay ku noolay dalka Mareykanka halka Sabinana ay ku noolay dalka Ireland oo ahayd mid leh reer iyo carruur. asal ahaanna waxay ka soo jeedeen labadan walaal dalka Sweden. sanadkii 2008 Arisla ayaa go'aansatay inay ku soo booqato walaasheed Sabina dalka Ireland kadib markay kala maqnaayeen muddo 8 sannadood ah. markii ay soo gaadhay dalka Ireland iyada iyo walaasheed waxay go'aansadeen inay aadaan dalka Ingiriiska iyadoo aanay cidna ogaan xitaa aanay u sheegin ninkeedii. waxaana u ekaa in go'aankan uu ahaa mid kadis ugu soo dhacay oo aanay qorsheyn markii hore. si kastaba haatee labadii walaal waxay soo gaadheen magaalada Liverpool. arrinka la yaab kalena wuxuu yahay in markii ay sidaasba u tageen magaaladii Liverpool waxay tageen saldhiggii ciidanka waxaana u sheegeen inay dhib haysato carruurtii Sabina ay kaga yimaadeen dalka Ireland. ciidankii Ingiriiska ayaa la xidhay ciidankii dalka Ireland waxayna ka codsadeen inay baadhaan oo ilaaliyaan carruurta Sabina. waxayna ogaadeen ciidankii dalka Ireland in Sabina ay istagaaleen ninkeeda laakiin carruurta aanay haysan wax dhib ah. si kastaba haatee Sabina iyo Arisla markii ay yimaadeen Liverpool waxay raaceen bas u socday magaalada London. laakiin iyagoo ku jira wadadoodii ninkii waday baska ayaa go'aansaday inuu ka dejiyo labadan walaal baska. sababtoo sidii u dhaqmayeen labadan walaal ayaa ahayd qaab ay ka shakiyeen. waxay ahaayeen qaar diiday in boorsooyinkoodii ay dhigaan meelihii loogu talagalay oo waxay ahaayeen qaar gacanta ku haysta oo ku dhegan. sidaa darteed ayna uga shakiyeen inay wax kale ku jiraan boorsooyinka. markii loo sheegay in la baadho boorsooyinkana way diideen sidoo kale. sidaa darteed aynu go'aansaday darawalkii baska inuu ku dejiyo labadan walaal boosteejada ugu dhow. inta kadibna labadii walaal waxay ku dhaqaaqeen lugahoodii waxayna u dhaqaajiyeen dhanka laamiga uu sareeyay xawaarihiisu. halkaasna waxaa ka dhacay dhacdooyinkii aan ku soo sheegnay halka hore. si kastaba haatee maalintii labaad ee dhacday ka dhacday laamiga waxaa la sii daayay Sabina. keliyana waxaa lagu xukumay hal maalin oo xabsi maalintii labaadna waa la soo daayay. arrinkanna wuxuu ahaa khaladkii ugu weynaa ay sameeyeen ciidanku. sababtoo Sabina waxay samaysay intaa kadib wuxuu ahaa wax ka sii xun wixii hore. Sabina waxaa la soo daayay waqtigu markii uu ahaa 7 habeenimo. iyadoo maraysa wadadiina waxay la kulantay laba qof oo socday wadada oo lagu kala magacaabayay Galaan iyo saaxiibkii Peter. Sabina markay aragtay labadan qof way ku laaxatay waxayna bilowday inay la ciyaarto ayay wateen. inta kadibna waxay labadii nin weydiisay inay u tilmaamaan hotel meelahan ka dhow ay seexato caawa. markana Galaan ayaa u soo bandhigeen caawa ay gurigooda seexato barina ay ka tagto ay sii wadato socodkeeda. Sabrina way kala labaysay bilowgii laakiin ugu dambeyn way ogolaatay oo way aqbashay arrinkii. markii ay gaadheen gurigii Sabina iyo Peter iyo Galaan waxay ku wada casheen habeenkaas hal meel. iyagoo casheynayna waxay soo bandhigtay inay qaataan sigaar ay seetay wayna ka ogolaadeen. laakiin si kaysa ay Sabina uga booday labada nin sigaarka ay siisay waxayna ku tiri ma iska cabaysaan sigaarka maxaad ka ogtihiin inuu sumaysan yahay. Peter wuxuu ahaa mid dareensan in gabadhan ay wax ka khaldan yihiin laakiin saaxiibkii Galaan ayaa ahaa mid raba inuu caawiyo gabadhan oo aan waxba dareensanayn. si kastaba haatee maalintii ku xigtay maalintaas Galaan wuxuu u baxay inuu alaab ka soo qaato reer jaarkiisa ahaa. markii uu sidaas u baxayna Sabina ayaa ka soo dabaxday waxayna ka taagtay mididii guriga taalay oo ay ka soo qaadatay guriga. halkaas uu Galaan ku dhacay oo ku dhintay. jaarkii ayaana maqlay waxa dhacay waxayna waceen booliskii. Sabina markay samaysay sidaas way caratay waxaana duubay kamaradii ku xidhnaa meesha markii ay ordaysay. sidoo socotay loo bursanayna waxay soo gaadhay meel boonda oo dhererkeedu gaadhay 12 mitir. waxayna ka booday oo iska tuurtay meeshii. laakiin arrinka la yaab kale wuxuu yahay Sabina way noolaatay dhacdaas kadib. wuxuu dhaawac ka soo gaadhay lafta madaxa iyo lugta laakiin way noolaatay. waxaana loo qaaday isbitaalka oo lagu daaweynayay muddo 4 bilood ah. iyadoo Sabina ku jirtay isbitaalka Arisla oo ahayd walaasheedii markii hore ay soo gaadheen dhaawacyada xun ayaa ka soo baxday isbitaalkii. waxayna u ekeed inay bogsatay oo ay nabad qabtay waxaana loo diray oo lagu celiyay dalkeedii ay ku nooleed oo ahaa Mareykanka. laakiin Sabina markii ay bogsatay lama sii deyn waxaana lagu qaaday kiiskii dilka Galaan. wayna qaratay inay dishay ninkaas laakiin marnaba uu sheegi weyday sababta ku kaliftay dilkiisa. waxaan lagu sheegay arrinkeeda markii ay baadheen dhakhaatiir iyo culimada nafsi in Sabina ay qabto xanuun nafsi ah. laakiin muxuu yahay xanuunkan ka dhigay in labadan walaal ee mataanaha ay wada waashaan hal mar muddo kooban kadibna ay hagaagaan oo ay bogsadaan. wuxuu sheegay mid ka mid ah dhakhaatiirta cilmi nafsiga ee ugu waaweyn dalka Ingiriiska in xaaladdan ay tahay xaalad waaliya oo u kala gudbaysa laba qof waana xaalad naadir ah. qof ka mid ah labadan qof ayaana ah qofka uu xanuunkaasi haya laakiin qofka kale isna wuxuu ka qaadanayaa fikradihii iyo dhaqamadii qofkaas. waliba gaar ahaan dadka mataanaha oo ah qaar uu ka dhaxeeya dhexdooda xiriir iyo cilaaqo nafsiyeed oo aad u xoogan. waxaana sheegeen dhakhaatiirtu in Arisla ay tahay mid qabta xanuunkan walaasheed Sabinana ay tahay mid ka qaaday. wuxuuna ka faa'iidaystay abukaati hudoodii Sabina hadalkii dhakhaatiirta isagoo soo bandhigay maxkamadda in Sabina ay qabtay xanuunkan. waxaa lagu xukumay Sabina kaliya 5 sannadood oo xabsi ah. waxaa la sii daayay kaliya markii ay xidhnayd 2 sano. sababtoo waxay ku sababeen in aanay ahayn mid u badheedhay ficilkan ay samaysay oo ahayd mid xanuunsanaysa. intaas uu ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. hayloobin hadduu ku qanciyay muuqaalku inaad like saarto. subscribe na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena Ogaal Cusub. waad mahadsantahay.